Midawga yurub ayaa noqday soo dhoofistaha ugu badan ee badeecada Turkiga. Waxa dhoofinta Turkiga ee Midawga yurub ayaa kor u dhaaftay lacag dhan 40 bilyan oo dollar horaanti sanadkan, iyadoo siyaaday mugdhan 42% intii u dhaxaysay bishii koowaad ilaa bishii lixaad ee sanadkan. Marka la barbardhigo isla waqtigaas ee sanadkii hore, isagoo gaaray 40 bilyan 857 milyan 72 kun oo dollar. lixdii bilood oo ugu horreysay sanadkan wax soo saarka Turkiga intii ugu badnayd sida baabuurta, dharka, maadooyinka kiimikada iyo birta waxaa loo dhoofiyey wadamada Midawga yurub, waxayna kor u kacday 57%. Jarmalka ayaa noqday wadanka Yurub ee ugu badan ee qaata badeecada Turkiga, isagoo gaaray 31.3% laga soo bilaabo bisha koowaad ilaa bisha lixaad. Marka la barbardhigo sanadkii hore, waxauna kor u kacay 3 bilyan 706 milyan 572 kun oo dollar. inta badan waxyaabihii loo dhoofiyey Jarmalka waxay kaga yimaadeen Istanbul muddadii u dhaxaysay Janaayo ilaa Juun.